gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa 30 sano kadib muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Cali Xasan ku wareejiyay guri uu wakiil uga ahaa muwaadin Cabdalla Cabdiraxmaan Alboosi oo si sharci darro ah hantidiisa looga haystay. wareejinta gurigan kadib ayaa duqa magaalada Muqdisho iyo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir mas'uuliyiinta degmooyinka Xamar Jajab Xamar Weyne taliyaha saldhigga degmada Xamar Jajab kormeer ku sameeyeen qaybaha uu ka kooban yahay gurigani oo ay ka muuqdeen burbur iyo dayac xoogan. gudoomiyaha degmada Xamar Jajab Guhaad Sheekh Xasan ayaa ka warbixiyay wareejinta gurigan iyo marxaladihii uu soo maray. inaan la xiriirno dhinacyo gurigan sheeganay inay gacanta ku hayaan oo ilaa 3 group ahaa markaan la xiriirnay way noo imaadeen laba qayb kamid ah waxay ogolaadeen inay gurigan si sharci darro ku deganaayeen ay ka guuraan qayb kamid ah waxay dhaheen gurigan nin oo ajnabi oo gaala iska leh saas deetaana waxay dhaheen anaga wixii sharciga na siiyo aqaadanayna sharciga noo dir dugmiinta daastiin la imaadaan dhaay muddo kadib markii aan isku soo noqonnay waxay arinta ku biyo shubatay in aan la soo wadaago gudoonka gobolka Banaadir gaar ahaan xafiiskaaga waxaana wareegtadii aan soo saartana sida arkaysa maanta way dhaqan gashay. wakiil Cali Xasan oo warbaahinta la hadlay ayaa ugu mahad celiyay cid kasta oo qayb ka qaadatay si cadaalad ah inay dib ugu helaan gurigoodii oo muddo gacantooda ugu maqnaa si sharci darro ah. maanta waxaa aad iyo aad aan ugu faraxsanahay maamulka gobolka Banaadir oo nagu wareejiyay gurigii intaan sano laga haystay 30 sano. marka mahad gaar ah ayaan siinayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Cumar Finish iyo gudoomiyaha degmada Xamar Jajab iyo taliyaha saldhigga degmada Xamar Jajab iyo gudoomiyaha ku-xigeenka dhammaanba aadaan idinka mahad celinayna aadaan ugu faraxsanahay inaad furaha nagu wareejisaan. waxaan ka sugayni waaye dawlad shaqada ay qabato shaqo fiican loo qabtay waan ku mahadsantihiin boqolkiiba boqol. gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir mudane Maxamed Cabdullaahi Tuulax ayaa tilmaamay in talaabadan ay tahay mid mudan in la xoojiyo. waxaan ku faraxsanahay inaan goobjoog ka noqono inaan wareejinta gurigan oo muddo 30 sano ah ku jiray gacan dad kale oo aan sharciyad u haysan. marka waa soo dhaweynaya inay dadkii sharciyada u lahaa ay dib u helaan wixii ay xaq u lahaayeen ama hantidoodii. guud ahaanna magaaladan waa caasimadii dalka qof walba oo sharci darro ku haysta hanti uusan lahaynna ma noqonayso wax sii waara. sharciga unbaa maalintiisa keenaya waana looga daba imaanaya. marka cid walba oo aan sharci ahayn haysata waxaa u furan fursad ah inay dib u celiso inta aan sharciga u iman. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish waxa uu sheegay inaysan aqbali doonin in qof hantidiisa si sharci darro ah looga haysto. maantay waa mid ka mid ah gurihii la kala haystay oo aan ku salimayno gacanta dadkii laga haystay kadib markii xoog dawladeed looga saaray dadkii 30 sano haystay gurigaas. waa gurigii lixaad aan filayaa inta hadda aan ka saarnay intii aan joognay xafiiska dadka guriga xooga ku haystay kuna wareejinay dadkii guriyahaas laga haystay. runtii waxaan kala kulmaynay dadka guriga haysta marmarsiyo aan macquul ahayn oo kala gedisan ha ahaadeen falsification ay samaystaan ha ahaado ninba aan wakiil uga ahay ha ahaato ajnabiga iskale iyo waxyaalo aan laaqi ahayn oo runtii dhammaantood ku tusinaya sida ay u rabaan inay weli isaga sii dheganaadaan hantida ummadda Soomaaliyeed. runtii waxaan rabaa maanta inaan halkan ka caddeeyo haddii ajnabi uu hanti leeyahay shakhsi Soomaaliyeed ee wakiil uga noqon kara ma jiro. waxay sheegeen kuwaan hadda gurigan reerahanu male ee waxaa iskale ajnabi gaala lahay. marka ajaanibta cidda la tacaamulka
la tacaamulkooda cidda iska leh waa dowladda ee ma aha shakhsiyaadka